نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. qisada nebi yuusuf waxa uu eebbe ku tilmaamay inay tahay qisada ugu wanaagsan ee ku soo aroortay qur-aanka kariimka ah iyo weliba kutubtii hore ee la soo dejiyey. nebi yuusuf waxa uu ka soo jeedaa qoys wada nebiyo ah, sidaa awgeed waxaa loogu yeedhaa kariim ibnu kariim ibnu kariim ibnu kariim. sidaan la soconno, nebi yuusuf waxaa dhalay nebi yacquub, nebi yacquubna waxaa dhalay nebi isxaaq, nebi isxaaqna waxaa dhalay nebi ibraahim calayhim assalaam. nebi yuusuf aabihii wuxuu ku yidhi, aabbow waxaan ku riyooday ayada oo 11 dayax qorraxda iyo bisha ay ii sujuudayaan. nebi yacquub waxa uu gartay in wiilkiisa yar la imtixaani doono, markaasuu ku yidhi, wiilkaygiioo ha u sheegin riyadaada walaalada, sababtoo ah nebi yacquub waxa uu dareemay in yuusuf walaaladii ay xaasidi doonaan, shaydaankuna ku diri karo. nebi yacquub waa uu jeclaaday wiilkiisa yuusuf maadaama uu ku arkay sifooyinka nebiyada iyo akhlaaqdiisa oo wanaagsaneed darteed. nebi yuusuf walaaladii oo ahaa 10 wiil oo isku hooyo ah ayaa xaasidnimo u qaaday yuusuf iyo walaalkood binyamiin, waxayna dareemeen in aabbahood aad uga jecel yahay yuusuf iyo walaalkood binyamiin. waxayna isweydiiyeen, sidee u dhici kartaa in aabbaheen naga jeclaado yuusuf? maalin maalmaha ka mid ah ayaa yuusuf walaaladii ku tashteen inay ka taqalusaan yuusuf oo ayagu ay ku soo haraan aabbahood. mid ka mid a walaaladii yuusuf ayaa yidhi, hadilnina yuusuf ee ku tuura ceel salkiis, ha qaataan dadka safarka ah. go-aankii ayay isku raaceen, kadibna waxay u yimaadeen aabbahood nebi yacquub, waxayna ku dhaheen, aabbow nagu dar yuusuf, hanala soo ciyaaray, anaga ayaa ka ilaalinayna dawaca iyo yeyda. yuusuf oo markaas ahaa wiil aan qaangaarin. nebi yacquub waxa uu yidhi, waxa ay warwar gelinaysaa in aad la tagtaan yuusuf kadibna yeygu cuno adinkoon ogeyn. nebi yuusuf walaaladii waxay dhaheen, siduu yeygu u cunayaa inagoo koox ah? taasi dhacdo waxaan ka mid nahay kuwa khasaaray. nebi yacquub waa uu ku aaminay wiilkiisii yaraa walaaladii, wayna la tageen yuusuf, kadibna waxa ay ka saareen shaatigii uu sitay kuna tuureen ceel salkii, iyagoo ku qoslaya oo ku leh, yuusufow aabbahan waa uu ku jeclaa, maantana waxaad ku jirtaa ceel salkii. halkaas ayayna kaga soo tageen. جاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. walaaladii waxa ay gowraceen lax, kadibna shaatigii ayay waxay ku masixeen dhiig been ah, waxayna ula tageen aabbahood xilli habeen ah iyagoo ooynaya. waxayna dhaheen, aabbow yuusuf waxaan uga tagnay alaabta, anaguna waan ordaynay ama waa tartamaynay, kadibna waxaa cunay dawacii ama yeygii. nebi yacquub waxa uu yidhi, saas ma ahane, waa waxa ay naftiin idin qurxisay, aniguna waa samraya, eebbaheenna waan tala saaranayaa. nebi yuusuf intuu ceelku ku jiray, alle ayaa u waxyooday inuu maalin maalmaha ka mid ah walaaladii uga warrami doono waxa ay ku sameeyeen. nebi yacquub waxa uu godogalay inuu alla baryo kuna samro dhibta soo gaartay. dhanka kale, ceelkii agtiisa waxaa yimid dad socoto ah oo doonayay inay waraabiyaan xoolahooda. kadib waxa ay dul yimaadeen ceelkii, markaasay ku tuureen dalowdii si ay biyo u soo qaado. markuu yuusuf dareemay in dad dul joogaan, ayuu qabsaday dalowgii. dadkii socotada ahaa ayaa dhahay, dalowdu way culus tahay, kadibna way iscaawiyeen oo soo saareen dalowdii. si lama filaan ah ayay u bishaaraysteen oo dhaheen, waa bishaaro, waa wiil yar. dadkii socotada ah waxa ay tageen Falastiin iyagoo oo ku wajahan waddanka Masar si loo gado wiilka yar oo ay heleen. nebi yuusuf waxa uu noqday adoon la kala gato, kadibna waxa ay ku iibiyeen qiimo aad u hooseeya. waxaana gatay wasiirkii Masar oo geeyay gurigiisa, wuxuuna ku yidhi kii gatay xaaskiisa, wanaaji wiilkan oo hoysii, waxaana laga yaabaa inuuna anfaco ama aan ilmo ka dhigano. nebi yuusuf markuu qaangaaray oo xoogaystay, wuxuu eebbe siiyey cilmi iyo xikmad. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن